Mareykanka iyo Ruushka, labada wadan ee caalamka ugu saameynta badan, waxaan isbarbar dhigi doonaa cududooda ciidan annagoo eegi doona kan awood ahaan sarreeya. Xogta ciidan ee labada dal laga hayo waxay caddeyn buuxda u tahay in ay haystaan cudud iyo saanad ciidan oo aad u ballaaran, taas oo sabab u noqotay in ay hormuud u noqdaan dowladaha kale ee caalamka. Isbarbardhig lagu sameeyay labada dowladood ayaa muujinaysa in Mareykanka uu leeyahay awoodda ciidan ee ugu xoogga badan caalamka dhanka badda, halka ciidanka Ruushkuna yahay kan ugu xooggan dhanka bariga. Hubka nukliyeerka ayaa ah udub dhaxaadka awoodeed ee labada dal, iyagoo labada dal ay hormariyaan farsamadiisa markasta. Ciidamada gaarka ah ee labada dowladood oo u kala baxa ciidamada dhulka ee sida gaarka ah u tababaran, kuna qalabeysan taangiyada waaweyn. Sidoo kale ciidamada badda oo leh maraakiib dagaal oo awood u leh qaadida hubka ridada dheer ee lagu xambaaro madaxyada nukliyeerka. Hubka nukliyeerka ayaana ah saanada ciidan ee kala go'aamin karta awoodda labada dal, iyadoon booska ayna ka marnayn habdhiska awoodeed ee ciidamada labada dal. Marka laga yimaado nukliyeerka, aynu fiirino tirada ciidan iyo qaabka ay u howlgalaan ciidamada labada dowladood. Tirada ciidan ee dalka Mareykanka ku dhowaad 1.3 milyan oo askari, halka ciidamada Ruushkuna yahay 2,19629 askari. Dhanka kantaalada, Ruushku wuxuu ku qalabeysan yahay kantaalada lagu magacaabo SS-19, SS-25, SS-27, waxayna tiro ahaan dhan yihiin 489 gantaal, iyagoo qaadi kara ku dhowaad 1800 oo madaxyada nukliyeerka ah. Halka dowladda Mareykankuna isticmaasho 2 nooc oo kaliya gantaalada, kuwaasoo kala ah Minitaymon M3 iyo M6 oo tiro ahaan gaaraya 550 gantaal oo qaadi karta 500 oo madax oo nukliyeer ah. Ruushku waa quwad marka la eego bariga, awood aad u ballaaran, iyadoo markasta isku dayda in ay dhulka saameyn weyn ku yeelato, halka dowladda Mareykankuna leedahay ciidamo badeed aad u awood badan. Sidoo kale, haddii aanu fiirino ciidamada cirka labada dal, Mareykanka ciidamadiisa cirka tiro ahaan waxa ay dhan yihiin 327,452 askari, halka diyaaradihiisuna dhan yihiin 5,573 diyaaradood oo nooca dagaalka ah iyo 32 dayax gacmeed, halka Ruushka ciidamadiisu cirku dhan yihiin 184,600 oo askari iyo sidoo kale 10,000 oo diyaaradood oo nooca dagaalka ah. Mawduuceena halkaas ayuu noogu egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.